الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. madaxweynaha Puntland Said Abdullahi Dani ayaa boqolaal ka mid ah shacabka caasimadda Puntland ee Garowe kula tukaday salaada Ciidul Adha garoonka kubadda cagta ee Mirawar waxaana sidoo kale ku wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Ismaan Axmed Karaash iyo mas'uuliyiin ka tirsan golayaasha dawladda isimo nabadoono waxgarad siyaasiyiin iyo mas'uuliyiin kale ayaa ka qayb galay munaasabadda. madaxweynaha Puntland iyo ku-xigeenkiisa ayaa dhammaan ummadda islaamka iyo shacabka Soomaaliyeed ugu hambaleeyay munaasabadda Ciidul Adha. waxay muujinaysaa midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo midnimada ummadda muslimiinta meel kasta ay joogto. waa dardaarankii nabiga iyo diinteena fariisay. waxaan u rajaynayaa ummadda muslimiinta meel kasta ay joogto dhibaha iyo mashaakilka dalalka muslimiinta ka jira ilaahay inuu ka dulqaado. waxaan sidoo kale ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ilaahay uga baryayaa inuu cimri fiican iyo caafimaad iyo nabadgelyo iyo deganaansho uu siiyo. dhibaatooyinka haystana ilaahay uu ka dulqaado. hadduu ahaan lahaa mid ka yimaada bini aadamka iyo midka ka yimaada xagga alle ee abaaraha ay mararka qaarkood sababaan, waxaan rabbi uga maxamdinaqaynaa raxmaddii ballaarnayd ee uu gugaysiiyey. waxaan ilaahay ka baryaynaa sidoo kaleeto inuu xilli roobaadka nagu soo socdana roob wanaagsan oo ummadda aan wax yeelin ilaahay inuu siiyo. dabcan sanad kasta munaasabaddan oo kale wayna soo maraysaa. munaasabadahanna waa munaasabadaha laysugu hambaliyeeyo farxadda iyo damaashaadka iyo in ilaahay subxaanahu wa tacaala la baryo. ummadda muslimiinta iyo ummadda Soomaaliyeedba waxaa la gudboon inay isu naxariistaan dhexdooda, inay kuwa taagta yar ay tabantaabiyaan, in kuwa xadgudbisan ay iska qabtaan, inay mustaqbalkooda si midaysan uga wada shaqeeyaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala oo wax walba bixiyana ay mar walba baryadiisa badiyaan. ilaahay waan ka baryaynaa nabadgelyo iyo caafimaad iyo deganaansho. waa munaasabaddii ciidda. farriinteennu waa hambalyo, farriinteennu waa duco inaan ummadda muslimiinta u ducayno. ilaahay dhibka uu ka dulqaado, qofka jira ilaahay u caafiyo, qofka muraad kale ilaahay muraadkiisa u sahlo, dad isku wada naxariista aan noqonno, mar walbana ilaahay ku xirnaado xusuusnaado. waxaan kale oo aan kelmad ku darayaa isku duubnida Puntland waxaa lagu dhisay isku duubni, wada tashi iyo isu dulqaad. tii waa looga baahan yahay Puntland, waxaa looga baahan yahay samir, waxaa looga baahan yahay wada tashi, waxaa looga baahan yahay isu tanaasul. salaada Ciidul Adha ayaa maanta laga tukaday dhammaan caalamka islaamka. Cabdullaahi Cabdinuur Yuusuf Cabdullaahi Bakayle, telefishinka caalamiga ah Ariel TV, magaalada Garowe. سبقت يدا فبقي يوم ريومي سما الله يسومي سوم